أرضي بانها يو أرضي بانها يو وبحي ودنكانها يو أرضي بانها يو أرضي بانها يو وبحي ودنكانها يو وحان ورديا ورديا دكسي لو Martin Luther King wuxuu ahaa baadari Maraykan ah, wuxuu ahaa halgamaa iyo hogaamiye u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda shacabka madow ee Maraykanka bartamihii 50kii ilaa 68. Martin ayaa dhashay 15kii January 1929 isagoo ku dhashay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Wuxuu ahaa cunugii labaad ee qoyskooda. Martin aabihii wuxuu ahaa baadari, isagiina wuxuu noqday baadari, balse wuxuu jeclaa inuu noqdo qof u dooda xuquuqda aadanaha gaar ahaan dadka madow ee Maraykanka ku noolaa xilligaasi. Hogaamiyihii Hindiya Mahatma Gandhi ayuu kala mid ahaa aragtida kacdoonnada aan rabshadaha wadan ee sida nabadgelyada ah ku dhaca, taas oo Hindiya uu kaga saaray gumaystihii Ingiriiska. waana halka ay ka siman yihiin labada hogaamiye waa Martin iyo Gandhi. 1955 Martin ayaa hogaaminayay iska horimaadkii ka dhashay kadib markii qof dumar ahayd ay diiday inay kursi bas kaga kacdo nin caddaan ahaa, taas oo ugu dambayntii sababtay dadkii la adoonsan jiray inay xorriyaddooda u kacaan. waxaa xilligaasi jiray midib kala sooc baahsan marka ay timaado basaska dadweynaha ay raacaan. mudaaharaaddii waaweyn ayaa ka bilowday magaalada Montgomery ee gobolka Alabama kadib markii Rosa Parks oo ahayd gabar madow ay diiday inay kursiga kaga kacdo nin caddaan ahaa, waana halka ay ka dhalatay mashaqada ama kacdoonkii dadweynaha madow ee dalkaasi Maraykanka. Dr. King ayaa sanadkii 1962 hogaaminayay dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Albany ee gobolka Georgia, taas oo lagaga soo horjeeday midib kala soocii ka jiray dalkaasi Maraykanka. waxayna arrintaasi ka caawisay inuu kiciyo dadweynaha sanadkii xigay oo ahayd 63, taas oo ka dhacday Birmingham oo ka tirsan gobolka Alabama. bishii March isla sanadkaasi ayuu Martin qabtay isku soo bax ka dhacay Washington, midaas oo lagu xasuusto inuu jeediyey khudbaddii caanka noqotay ee ahayd I have a dream. waxaan ku riyooday afartayda carruurta ah in maalin uun ay ku noolaan doonaan waddan aan lagu xukumi doonin midabyada jirkooda ee lagu xukumi doono sida dabeecadahoodu tahay. 14 bishii Oktoobar sanadkii 1964 Dr. King ayaa ku guulaystay abaalmarinta Nobel Peace Prize kadib markii uu ka soo horjeestay sinaan la'aantii ka jirtay dalkaasi Maraykanka isagoo u marayay kacdoono aan rabshado wadan. Sanadihii dambe ee noloshiisa wuxuu diiradda saaray sida uu la dagaalami lahaa faqriga iyo dagaalkii Vietnam oo uu Maraykanka ku qaaday dalkaasi Vietnam, wuxuuna sheegay inaysan habboonayn in Maraykanka uu ku lug lahaado dagaalada socda, taas oo sababtay inay ku kala tagaan qaar badan oo ka mid ahaa xisbigii liberaalka kadib markii uu jeediyey khudbaddii iyadana caanka noqotay ee ahayd Beyond the Vietnam. xilligaa waxaa bilowday dhaqdhaqaaq gacanka hadal ahaa oo dadka madow ay ka soo bilaabeen magaalooyinka Detroit, Chicago, Cincinnati iyo New York. 4 bishii Abriil 1968 ayaa Martin Luther King lagu dilay shirqool toogasho ah isagoo u safrayay shaqo joojin ay ku dhawaaqeen shaqaalaha naafada si uu u caawiyo. Dr. King ayaa lagu toogtay banaanka qol uu ka deganaa hotel ku yaala magaalada Memphis ee gobolka Tennessee, hotelkaasi oo lagu magacaabo Lorraine Motel.
Sherman, United Press International in Memphis. Memphis police report they have just confirmed that Reverend Martin Luther King has been shot. geeridii Martin ayaa ruuxday magaalooyin badan oo ku yaala Mareykanka. madaxweynihii xilligaasi Mareykanka Johnson ayaa ku dhawaaqay maalin qaran oo baroordiiq ah. Martin Luther King ayaa waxaa toogtay nin caddaan ahaa oo lagu magacaabi jiray James Earl Ray, isaga uu ka soo toogtay dabaq ka soo horjeeday hotelkii uu deganaa Dr. King, wuxuuna ku dhuftay hal xabad oo keliya. Ray ayaa la soo qabtay bil kadib markii uu isku dayay inuu u baxsado waddankii lagu magacaabi jiray Rhodesia oo maanta loo yaqaan Zimbabwe. waxaa la soo xiray 8 Juun 1968 isaga oo ka dhoofi rabay garoonka Heathrow ee London. waxaa lagu xukumay 99 sano xabsi ah, wuxuuse geeriyooday 1998.